markale isku soo noqod wacan waa maalinimo khamiis ah taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha 3 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay hay-adda IAEA oo eedeysay dowladda Iran. hay-adda tamarta atomiga caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa dowladda Iran ku eedeysay in ay hareer martay sharciga caalamiga ah ee la xiriira xakameynta hubka nukliyeerka. barnaamijka nukliyeerka ee Iran ayaa la sheegay in uu si weyn u sii kobcayo isla markaana ay jiraan goobo cusub oo ay xukuumadda Tehran si qarsoodi ah ugu farsameysay barnaamijkeeda ku saabsan bacriminta macdanta uraniumka ee laga farsameeyo nukliyeerka. hay-adda IAEA ayaa dowladda Iran ku dhaleeceysay sida ay ugu guuldareysatay inay ka jawaabto su'aalaha la xiriira howlaha nukliyeerka, waxa ayna sheegtay in ay Tehran dooneyso inaanan lala socon howlaheeda ku aadan hubka halista ah iyo weliba qaabka ay u shaqeeyaan. dhinaca kale, isla Iran oo xabsiyada ka sii daysay kumanaan maxbuus ah. Iran ayaa si ku meel gaar ah xabsiyada uga sii daysay in ka badan 54,000 oo maxbuus ah si looga hortago faafidda caabuqa coronavirus si uusan ugu sii faafin xabsiyada gudahooda. Ghulam Hussein Ismail oo ka tirsan waaxda garsoorka Iran ayaa wariyaasha u sheegay in maxaabiista laga sii daayay xabsiyada kadib markii la xaqiijiyay in aysan qabin cudurka coronavirus. maxaabiista u xiran dambiyada dhanka amniga oo lagu riday 5 sano oo xariga lama sii dayn doono, ayuu yiri afhayeenka. cudurka coronavirus waxa uu ku baahay gudaha Iran halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan 77 qof muddo ka yar 2 toddobaad. talaadadii wasiirka caafimaadka Iran waxa uu sheegay in tirada dadka la xaqiijiyay in uu ku dhacay coronavirus ay sare uga kacday in ka badan 50%. hadda waxa uu ku dhacay gudaha Iran 2,336 qof, inkastoo la rumaysan yahay in tirada ay intaasi ka sare mari karto. dhinaca kale, Xuutiyiinta Yemen oo xukun dil ah ku riday xildhibaano ka tirsan dowladda Yemen. maxkamad ku taalla caasimadda waddanka Yemen ee Sanca ayaa waxa ay dil toogasho ah ku xukuntay in ka badan 35 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka dalkaasi. Xuutiyiinta ayaa waxa ay xildhibaanadani ku eedeeyeen in hantidooda loo adeegsado dagaalka ay dowladda uga soo horjeeda iyaga, taasi oo ay taageero uga helayaan dowlado kale oo ka tirsan caalamka sida dowladda Iran oo si dhow u taageerta dowladda waddanka Yemen. dhinaca kale, waxa ay kooxdani ay sheegeen in xildhibaanadani ay uga digeen in ay dhaqaale ku bixiyaan dagaalka ay dowladda ku hayso mucaaradka. maxkamadda maanta xukunka ku riday xildhibaanada waddanka Yemen ayaa ah mid gaar ah oo ay Xuutiyiintu ku maxkamadayaan dadka ay u arkaan in jiritaankoodu ay caqabad ku yihiin. Turkiga oo weerar culus ku qaaday Syria. dowladda Turkiga ayaa maanta waxa ay weerar la sii qorsheyn ay ku qaaday ciidamada militariga Syria ee daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad, kaasi oo khasaare baaxad la gaarsiiyay sida ay warisay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Turkiga. wasaaradda gaashaandhigga dowladda Turkiga ayaa waxa ay khasaaraha weerarkaasi ku sheegeen in ka badan 82 xarumood oo ciidamada militariga Syria ay ku lahaayeen waqooyiga dalka Syria, gaar ahaan gobolka Idlib. in ka badan 299 ka mid ah qalabka ay militariga dowladda Syria leedahay ayaanu burburinay, iyo sidoo kale xarumo kale oo fara badan oo ay lahaayeen militariga dowladda Syria, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda Turkiga. weerarkani ayaa u muuqda mid rumeynaya isla mar ahaantana caddayn u ah hanjabaadaha Turkiga muddooyinkii dambe hawada u marinayay dowladda Syria, taasi oo ahayd in uusan u dulqaadan doonin waxa ka soconaya dalka Syria, gaar ahaan gobolka Idlib.
dhinaca kale maxaa ka jira khataraha laga sheegayo cudurka coronavirus? waxaa dabayaaqadii sanadkii tegay ee 2019 magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee dalka Shiinaha lagu arkay cudur aanan sidaasi looga sii walaacin, balse horaantii sanadkan ay soo baxday khatartiisa. waxaa caabuqani oo horay dunida aysan u sii aqoon loo bixiyay coronavirus, balse markii dambe ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caafimaadka u bixisay COVID-19. caabuqani oo ka dilaacay dal ay ku nool yihiin in ka badan 1 bilyan oo ruux ayaa waxa uu si dhaqsi ah ugu faafay dunida inteeda kale. gudaha Shiinaha waxaa ilaa iyo haatan fayraskani uu soo ritay in ka badan 90,000 oo ruux, halka in ka badan 3,000 oo ruuxna ay u dhinteen. caabuqani waxaa la daalaa-dhacaya in ka badan 60 wadan oo dunida daafaheeda ku yaala, kuwaasi oo boqolaal muwaadiniintooda ah uu soo ritay. marka laga tago Shiinaha, dalalka uu saameyntaada ku yeeshay coronavirus ayaa ah dalalka Talyaaniga iyo Iiraan, oo ay maalinba maalinta ka dambeyso ay sii kordhayaan dadka uu soo ridanayo. warbaahinta dunida iyo dadka adeegsada baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhaya fayraskani khatarta ah, iyaga oo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa soo bandhiga wadamada uu gaaray iyo dadka uu soo ritay. balse dad badan waxa ay aad u dhaliilsan yihiin habka loo hadalhayo cudurkani, oo ay qabaan in ay tahay mid laga badbadiyay oo xadkiisaba la dhaafay. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maalmo ka hor qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhibaatada dunida ay wajahayso aysan ahayn halista cudurka coronavirus, balse uu yahay wararka propagandada ah ee laga faafinayo. wasaaradda dowladda Soomaaliya u qaabilsan dhanka caafimaadka ayaa tiro dhowr jeer ah sheegtay in ay u diyaar garoobeen la tacaalidda xanuunka, iyaga oo wasaaradda walaac ka muujisay heerka buunbuunida ah ee la gaarsiiyay khataraha xanuunka coronavirus. agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Yuusuf Axmed ayaa warbaahinta u sheegay in ay diyaariyeen guddiyo gaar ah oo u qaabilsan tabinta khataraha cudurka coronavirus si ay kaga hortagaan in la baahiyo warar aanan sax ahayn. ugu dambeystina xiisada u dhaxaysa Midowga Yurub iyo Turkiga oo gaartay meeshii ugu xumeyd. wadamada Midowga Yurub waxa ay soo bandhigeen lacag dheeri ah oo loogu talagalay booliska xuduudda ee dalka Greega iyo gargaarka bini'aadanimo ee loo fidinayo dadka ku tabaalaysan gobolka Idlib ee wadanka Syria. wasiirada arrimaha gudaha ee Midowga Yurub ayaa Arbacadii shalay ku kulmay magaalada Brussels ee wadanka Belgium-ka, kuna yeeshay shir degdeg ah ayaa shaaciyay in shirkooda uu horudhac u yahay shirarka wasiirada arrimaha dibadda dalkaasi ay yeelanayaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. bayaan horudhac oo ay si wadajir ah wasaaradda arrimaha gudaha Midowga Yurub u soo saareen ayaa waxa ay ku cadeeyeen in wadanka Turkiga uu si weyn ugu xadgudbay qaxootiga, isla mar ahaantaana meel cidla ah uu ku sii daayay 700 oo milyan oo euro ayaa loogu deeqay booliska iyo militariga Greega si ay uga hortagaan kumanaanka qaxooti ee ku sii wajahan wadamada reer Yurub. in ka badan 25,000 oo qaxooti ayaa iminka ku go'doonsan xadka ay wadamada Turkiga iyo Greega ay wadaagaan, iyaga oo haatan wajahaya xaalad nolol xumo oo aad u liidata.